been ma kuu sheegay sharciga yaraan oo ilaasinayo oo isdhahay bal meeshaan ay maartay meelahaas ay ku duldul waa la saga daba imaaday bahalkan ay baasaboorka loo soo socdaa ma fahmino marka imaada kiid Elson u codeeya xisbiga dimuqraadiga ah dadka idinka wataan idinka yaqaan u codeeya laakiin waxa halkan u soo galay in ay muhiim tahay in aan aragno tomorrow waqti badan soo keen dambeysay aniga Facebook soo gali jirin ayaantaan waa iska nastay alxamdulillah because of jijiidki iyo wixii waa iska fahmi kartaa ya xabado badan way ku dhacayeen meeshii ma laga sii hadlaayo marka walaalayaal imaada nala soo qayb gala wixii kaftana waa iska kaftan at the end of the day waa jecelnahay dad walaala aan nahay dad muslim ahaan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna believe me ban idima sheegay aniga indhahayga ku arkay gabdhahan caadi maaha wadankan Soomaaliya gabdhahan lagu wareejiyo 4 sano kaliya aan ku fiirino 4 years just 4 years arka wallahi billahi jijiid badan ma dhici lahayn dhibaato badan ma dhici lahayn dantooda yaqaanaan karti bay leeyihiin waxbay qabsadaan horay u socdaan dhibka dhan anaga waaye subalkan maxaa waaye dhibka dhan ragga waaye ma fahmino 30 xoogaa sano waxa waa geen weynay dadka isku keeni weynay ummadda waa isku keeni weynay marka bal 4 sano hal tijaabiyo alxamdulillah waxaan u maleynayaa inay dadka isku keeni doonaan oo maartay guulna gaarsiin doonaan marka waxa idin rajaynayaa inaan is aragno habeen dambe xogaa waxaan la soo xiriirayaa insha Allah ta'ala wiil yar anoo ah aan meesha imaanaya dhalinyaro ah waa fahanteen Soomahan hadee wixii media waa joogaan marka meeshaas in idinka arko aniga aad iyo aad igu weyn hadaa is leedahay shalay ilahana ka soo horjeeday iska ilow waxa soo dhamaadeen hore loo soconaya qofta waa tagtay ma fahmino tareenka cusub soo raac waa soo raacin anaga gacmaha ay seysano hadee khayr idin rajaynaya I love you guys all and intaan ka badan waxa waay dambiya u maleynayaa hadalka badan waa laga fiican yahay guul khayr insha Allah ta'ala share ku sii qabta ma la jiray hal imaada meesha dadka xamar joogo dadka boosaaso joogo dadka Ismaaciil joogo dadka joogo Cadaado dadka joogo Bokool iyo Djibouti iyo maxaa lahayd meesha aan jeclaa gobolka aan jeclaa maxay ahayd magaciisa magaaladeedii Lascaanood life soo gala daawada waxaan rajaynayaa anagoo happy ah inaan horumar gaarno gabdhaheena yar yar iyo wiilasheenaba run ahaantii waxay u tahay ilhaan Roomaro aniga Axmed ahaan wallahi been ku sheegay si u shaqeysaan arkay say hore ugu socotaan arkay aniga wiilkayga yarba waxay noo tahay Roomaro marka intaas kaliya awgeed imaada hadduu Ilaahay yiraahdo markay xagga tagtana haddii la sicin lahayd xataa hore oo sii wadanayna ma fahmino wadanka tagayda dawladdeena isku dhiibayna xaggan ka sii wadayna hawsha haddii Ilaahay yiraahdo dawladdeena hala taageero intaas yarta dawladnimada waa fiican tahay ayadana waxaan rajaynayaa inay ka shaqeyso dadka si soo dhaweyn lahayd oo ma aragtay ay يعني ما في عنا إن سكو ماركت ما حرص قراعه. At the end of the day waxaa jira domestic maxaa dhahay policies and international inay kala fiirsato strategy-gooda inay isku wareejiso dad daacad u ah oo horumar gaarsiinayo meeshaan ay waxa waaye dadku waa daaleen been ku sheegaa odayaasha waa daaleen xataa raggii oo siyaasiyiinta ku jiray ayaga yaaba daalay wallahi way daaleen naftirkooda si loo ciirsanayay ayagana wax u ciirsanayeen maanta oo dhan marka waxaan rajaynayaa inaan isku imaano oo aan hor u soconno dawladana hala taageero maamul goboleedyada kuwa dhisanna hala taageero kuwa wax ka dhiman yihiin hala sii dhameystiro insha Allah ta'ala ilaahay maaragtay dad daacada oo urkooda isku fiyo ilaahay naga dhigo oo isjecel isku jecelnahay waa ogtihiin it's no doubt about that waa isjecelnahay laakiin xogaa yar oo siyaasadda ah ayadana waxa waaye waa maturity levelkii aan wali dhiman ma gaarin you know dadka waxay ku qaadataa 200 sano inay dhisaan system jiro ما فهمنا وليبا فدراليزم oo hadda oo ilaahay og yahay xalkiisa marka taas ma ku sii dheeraanayo waxa in leeyahay kaliya inta yarta aan haysana hal sii riixo khayr isku ognahay brito dadka live ku jira ku soo wacay wallahi Soomaali dib kaliya waa kuwa live ku jira ay soo wacay meeqa telefoon ay haystaan anyways brito as aragno noo imaada wasla baashaalena dulaaraado fanaaniintu waa wacay DJ-yaashi waa wacay buraanburadi diyaar waaye diraca soo xirta guntinada meeshaas aan qasna tomorrow fiican qasitaan wanaagsan laakiin ya khayr aad rajeenaya I love you guys ilaahay khayr aan siiyo noo soo duceeya siyaasadda wax sahlan ma ahan inta ku jirtana u duceeya oo muslimiinta ah oo maaragtay oo wadankan ku jirto hodan iyo maxamuud nuur iyo siyaad cali iyo dulaayo ku roon yahay cabdi warsame iyo AK iyo u duceeya baashan wax sahlan ma ahan inta u soo socotana
ina karti leedahay ogow baashaan igu soo degdeg ma ahan marka insha Allah britaas arkayna haddii Ilaahay yiraahdo haddaan noolahay waa intaas soo duceeya khayr ay rajeenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم أنت ولد عيسنا يا dadka markay soo galaan Facebook live marwana ugu dambeysay meeshii taabanay xataa inaan taabtay ma aqaan atig inaan ku jira umaleynaya insha Allah taala suuqiya waxyar aan kala habeeyay isuga waxyar okay hadda soo galay baalka okay السلام عليكم سو دواده maanta waxa waaye waa la duceynayaa ما شاء الله والله مرة ugu dambeysay live aan soo galo maanta waxyaabo badan aan idin sheegaynaa ku saabsan campaign-ka say wax u socdaan insha Allah taala meesha wax marayaan mar dhawaa bilaawanayna programka dhahan dadka live soo galo moogta heesa intii la shido heesa ima haystay ani waxa shida ma haystay but anyway السلام عليكم ورا أمر إنا شقيسه محاك وداع لا إله إلا الله أنا وصور لونت anyways سود هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله هنا جامع عير سود وو كان صار له اسك قريبا أوكي سود هذا وعليكم السلام كل جين أحمد حرسي ومرة يمكن دنبيسي فيسبوك عيانا كم مقنع waxaan uga maqnaana waxay iska ahayd maartay dana gaar ah oo aniga family ahaan waxaan rabay inaan ka tago bahalka siyaasadina waa xogaa lagu wareeray Soomaaliya marka inaan break ka qaato alxamdulillah dhamaantiin waa salaamantihiin mar kale assalaamu calaykum inta gadaal naga soo gaartay soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin sheego election kan hadda ilhaan ay ku jirto waa la socotaan saa umaleynaya kulligeen muxuu taagan yahay iyo muxuu nagu soo kordhinayaa iyo duulaaha ku roon yahay sababaha ama ku qasbay gabadhaasayto inay u cararto oo magaca Soomaaliyeed meel kore ay geyso wax sahlan ma ahan insha Allah taala saa ogtihiin بريتو وثلاثة أقدم بيسو إلكشن كدولا يراهدو وحرجينا يا إن شاء الله تعالى وحرجينا يا أنت نقع عضيسي أنت نوع عضيسي أنت عن نوع عضين كل جين إنك سوق بقشان tomorrow بريتو أو ثلاثة أدرس كإلهام في كونغرس هوس وكقرية هاي ماشي مارتي إلكشن كل جودة ونايو إنا إماتان صعبتو السياسة ولا كسوه جيسن كرا معنا ملاهن لكن وحا مهم إن تاريخ ذا نقف كستا أو صومالي أنا صومالي هان إلهان ضد بدني متشاء وارون مسلم يقال يكل وين متشاء وارون لكن أنا قدرنا هاي صومالي هان أد أي نوع سامينيسا أو بحاول أن ماذا أباهنا هاي مركب قف كستا أو صومالي أو أودو إنه نجلس وقيب كلا حفلة داس صدقوا هاي سدهن حتى أنا جمع عضين وكسوه رجالي إسكيلو صدقوا إن شاء الله تعالى وحرجينا يا إني جوش عن نقطة مد ومد مديسو هداد كتمد صومالي لأن هداد كتمد جيبوتي هداد كتمد كينيا هداد كتمد كلينكشن هداد كتمد صومالي وين بونتلان هيرشابيل جوبلان انتين كتقويا قلمودك يعني أنت رجال ما فعلا لكن هل إماض يعني مركب كل جينا إماتان وإن شاء الله تعالى سببته وحواي imagine gabadha markay tomorrow haduu ilaahay nafta u qoro oo ilaahay u sahlo markay tagto meeshaas ayadoo xijaabkeeda wadato oo ninkii caanka ahaa ay hor fariisato oo meel kasta laga arko qofka ajnabiga ah kuma dhahayo gabadhaanaytu waxa waaye reer qabiilkaas waaye ama gobolkaas ka soo jeeda kuma dhahayo wuxuu ku leeyahay gabar Soomaali ah aqalka cad ku jirto ama ninka hor fariisatay oo muslim ah ma fahanto Soomahan taas awgeed guushan qof kasta oo Soomaaliya iskale meel kasta tagano may iyo maxaatiri Soomaali Bantu Soomaali Banadiri Soomaali weyn war meel magac waxa soo dhan ama calanka buluuga ah wado ama midka guduudka ah wado ama midka wax kasta ku qoran yihiin wado idaasir maareer guushan ummadna iskale insha Allah taala waxa rajaynayaa tan inay noqoto mid ummadda dhan midayso inay noqoto mid sukaaya keento soo dhaweyso sababtoo lately waxa iska jiro siyaasadda aan ku sii fogaanay
haddaan nahay Soomaali siyaasadda laba guryo waxaa arkaysaa hal guryo waxaa arkaysaa waddankan oo ninkina uu yahay Republican xaaskina ay tahay dimuqraadi inay saasoo kale inaan gaarno waa rajaynayna insha Allahu tacaala sababtoo ah ma ahan siyaasadda in lagu kala fogaado waa la kala aragti duwanaan karaa waa la kala fakar duwanaan karaa marka waxaan waxba ahayn inaan maaragtay dagaal isugu qaado oo wadamo loo burburiyo ama gobollo loo burburiyo ama madaxweyne loo caayo ama mas'uuliyiin kale oo gobollada matasha loo caayo waa laga fiican yahay sababtoo ah taas annaga dhan ayay saameynaysaa ilmaheena ay saameynaysaa insha Allahu tacaala marka waxaan idinka codsanayaa maamulada jiro iyo maamulka weyn inaan taageerno ummadeena isku keenno aan anaga dhan hal soo wada jeesano run ahaantii marka campaign-ka ku jirtid aad ogaanaysaa Soomaalimada waxa ay tahay iyo Republicaanka dadka waddankan aan joogno dhibaatooyinka ay nagu hayaan markaas aad dareemaysaa waxa aad tahay markaas aad dareemaysaa in Soomaalinimadu ay tahay wax weyn markaas aad dareemaysaa ninka ka yimid waqooyi iyo kan koonfur ka yimid inay isku mid yihiin ma garateen marka guushan idinka iska leh alxamdulillah usoo duceey ilaahan ducadiina loo baahan yahay codkiina loo baahan yahay dhameystirkiina loo baahan yahay noo imaada nagala qayb gala inta imaan karto waa yani aniga personally wallahi meesha dhaxday Soomaali soo buuxiso okay aan ku ahay alxamdulillah waa fahanteen Soomaha marka ila gabarka ilaahan la soo hor u sheegay qof kasta matasha oo degan dad inta soo 700 oo kun gaaraya matasha laakiin at the end of the day waa gabar muslimada waa gabar Soomaali ah waa gabar minority waddankan ku ah idinka idin matasha aniga idinka idin la hadlayaa ina imaataan soo duceysaan codkiina bixisaan hadduu Ilaahay yiraahdo aad ka soo qayb gashaan waa muhiim waxaan rajaynayaa markana ku soo celcelinayaa in doorashadan ama electionkan Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo mid ummadda dhan wada tuso waa ku kala duwanaan karnaa wax kasta laakiin waxaan midayn karo mar kasta inay tan noqoto because maanta ilaahan qof kasta uu codeeyo lama dhihi karo reer hebel ka soo jeedaa lama dhihi karo gobol hebel ka timid cid dhihi karta ma lahan magaca Soomaali oo dhan Soomaalida Kenya degto Soomaalida Ethiopia degto Soomaalida degto waxa Djibouti Soomaalida degto gobolada waqooyi meel kasta waa faan Soomahan ilaa ay hoos Jubbooyinka u dhaadhac bay iyo Bokol dadahan shalay qaaday waliba arraadi ma faantay marka waxa idin rajaynayaa walaalayaal inay imaataan ka soo qayb gashaan xafladan wax yaraan oo dhiman ducada soo dira election kan waa very important been ma ku sheegay sharciga yaraayo ilaasinay oo isdhahay bal meeshaan ay timaartay meelahaas ay ku duldul waa la saga daba imaaday bahalkan ay baasaboorka loo soo socdaa ma fahmino marka imaada kiid elsan u codeeya xisbiga dimuqraadiga ah dadka idinka wataan idinka yaqaan u codeeya laakiin waxa halkan u soo galay in ay muhiim tahay in aan aragno tomorrow waqti badan soo keen dambeysay aniga Facebook soo gali jirin ayaantaan waa iska nastay alxamdulillah because of jijidki iyo wixii waa iska fahmi kartaa ya xabado badan way ku dhacayeen meeshii ma laga sii hadlaayo marka walaalayaal imaada nala soo qayb gala wixii kaftana waa iska kaftan at the end of the day waa jecelnahay dad walaala aan nahay dad muslim ahaan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna believe me ban idin ma sheegay aniga indhahayga ku arkay gabdhahan caadi maaha waddankan Soomaaliya gabdhahan lagu wareejiyo 4 sano kaliya aan ku fiirino 4 years just 4 years arka wallahi bilaa jijid badan ma dhici lahayn dhibaato badan ma dhici lahayn dantooda yaqaanaan karti bay leeyihiin waxbay qabsadaan horey u socdaan dhibka dhan anaga waaye subalkan maxaa waaye dhibka dhan ragga waaye ma fahmino 30 xoogaa sano waxa waa geen weynay dadka isku keeni weynay ummaddu waa isku keeni weynay marka bal afartooda sano hal tijaabiyo alxamdulillah waxaan u maleynayaa inay dadka isku keeni doonaan oo maartay guulna gaarsiin doonaan marka waxa idin rajaynayaa in aan aragno habeen dambe xogaa waxaan wala soo xiriirayaa insha Allah taala wiil yar ano ah aan meesha imaanaya dhalinyaro ah waa fahanteen Soomahan hadee wixii media waa joogaan marka meeshaas in idinka arko aniga aad iyo aad igu weyn haddaan is leedahay shalay ilahana ka soo horjeeday iska ilow waxa soo dhamaadeen hore loo soconaya qofta waa tagtay ma fahmino tareenkan cusub soo raac waa soo raacina anaga gacmaha ay seysano hadee khayr ay rajaynaya I love you guys all and intaan ka badan waxa waay dambi oo umaleynaya hadalka badan waa laga fiican yahay guul khayr insha Allah taala share ku sii qabta ma la dhigi jiray hal imaada meesha
dadka xamar joogo dadka boosaaso joogo dadka Kismaayo joogo dadka joogo Cadaado dadka joogo Bokool iyo Djibouti iyo maxaa lahayd meeshii aan jeclaa gobolka aan jeclaa maxay ahayd magaciisa magaaladeedii Lascaanood life u soo gala daawada waxaan rajaynayaa anagoo happy ah inaan horumar gaarno gabdhaheena yar yar iyo wiilasheenaba run ahaantii waxay u tahay ilhaan Roomaro aniga Axmed ahaan wallahi been ma ku sheegay si u shaqeysaan arkay say hore ugu socotaan arkay aniga wiilkayga yarba waxay noo tahay Roomaro marka intaas kaliya awgeed imaada hadduu ilaahay yiraahdo markay xagga tagtana haddii la isciilinayo ayda xataa hore u sii wadanayna ma fahmino wadanka tagayda dawladdeena isku dhiibayna xaggan ka sii wadayna hawsha haddii ilaahay yiraahdo dawladdeena hala taageero intaas yarta dawladnimada waa fiican tahay ayadana waxaan rajaynayaa inay ka shaqeyso dadka si isugu soo dhaweyn lahayd oo ma aragtay ay يعني ما فينا إن سكو مارتي ما حرص قراعه. At the end of the day waxaa jira domestic maxaa la dhahay policies and international inay kala fiirsato strategy-gooda inay isku wareejiso dad daacad u ah oo horumar gaarsiinayo meeshaanito waxa waaye dadku waa daaleen baan ku sheegaa odayaasha waa daaleen xataa raggii oo siyaasiyiinta ku jiray ayaga badaalay wallahi way daaleen naftirkooda si loo ciirsanayay ayagana wax u ciirsanayeen maanta oo dhan marka waxaan rajaynayaa inaan isku imaano oo aan hor u soconno dawladana hala taageero maamul goboleedyada kuwa dhisanna hala taageero kuwa wax ka dhiman yihiin hala sii dhammaystiro insha allahu tacaala ilaahay maaragtay dad daacada oo uurkooda isku fiyo ilaahay naga dhigo oo isjecel saa isku jecelnahay waa ogtihiin there's no doubt about that waa isjecelnahay laakiin xoogaa yaroo siyaasadda ah ayadana waxa waaye waa maturity levelkii aa weli dhiman ma gaarin you know dadka waxay ku qaadataa 200 sano inay dhisaan system jiro ما فهمنا وليبا فدراليزم أو هذا إلهي أوجي حال كيسة مركز تاسم كسي ديرانا أيو وحين الله يكليه أنت يرتاح هاي سنة على سير ريحو خير أسكو ابن هاي بريتو إيش ضد اللايف كوجرا كسوعة والله سما دب كلي هو كل لايف يقولوا جرا يسوعة ما قتل تلفونه هيستان anyways بريتو أسرقنا نوع ماذا أصلا باشالنا الدولار هذا فلانين تواعي دي جياش واعي برامبرودي ديار واي درع صوحرت قنتينا ذا ماشي عن قصنا tomorrow في عن قصتان فوق نفسنا لكن يا خير أدير جينا يا I love you guys إلهي خير إنسي نوصل دعية سياسة وحسها سهلا معهن يعني أنت كجرتنا ودعية أو مسلمين تأه أو معرتي أو وطن كان كجرتو هذا إيو محمود نور إيو سياد علي إيو دولاي كورو يا عبدي ورسمي إيو AK إيو ودعية باشا وحسهلا معهن أنت أصلا عطنا إنا كرتلها أوجو باشان يقولوا دق معهن مركا إن شاء الله بريتا سركنا هالدولاي راهدو هدان الله هو إنتاس صد دعية خير أي رجينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم دعي سنة يا dadka markay soo galaan Facebook live maroo aan ugu dambeysay meesha taabanay xataa inaan taabtay ma aqaan atig inaan ku jira umaleynaya insha Allah taala sugiya wax yar aan kala habeey isuga wax yar okay hadda soo galay baalka okay salaamu calaykum soo dhawaada maanta waxa waaye waa la duceynayaa ما شاء الله والله مرة يقدم بس لايف أسوق له ما أنت وحياة بدنا يدين شيء جينا كوسابسن كامبينك سوي الصعدان إن شاء الله تعالى ماشي وح مرايان مرة بلاونا إن برنامج كده هنطلع لايف أسوق له مكتئ هسه أنتي للشيء هسه إم هيستي أنا واحد شيء ما هيستي anyway السلام عليكم ورا أمر إنا شقيسه محاك وداع لا إله إلا الله أنا وصور anyways soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa bilaabanaynaa jaamac yare soo dhawow kan saan dhaho iska qari waa okay soo dhawaada waa idin salaamay kulligeen axmed xirsi waa marra idinkiin dambeysay Facebook ayaana ka maqnaa waxaan uga maqnaana waxay iska ahayd maartay dana gaar ah oo aniga family ahaan waxaan rabay inaan ka tago bahalka siyaasadina waa xogaa lagu wareeritay Soomaaliya marka inaan break ka qaato alxamdulillah dhamaantiin waa salaamantihiin mar kale assalaamu calaykum inta gadaal naga soo gaartay soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin sheego election kan hadda ilhaan ay ku jirto waa la socotaan saa umaleynaya kulligeen muxuu taagan yahay
iyo muxuu nagu soo kordhinayaa iyo hadduu ilaahay kugu roon yahay sababaha ama ku qasbay gabadhaasayto inay u cararto oo magaca Soomaaliyeed meel kore ay geyso wax sahlan ma ahan insha Allah ta'ala saa ogtihiin بريتو وثلاثة قدام بيسو election كدولاي راهدو وحرجينا يا إن شاء الله تعالى وحرجينا يا أنت نقع عضيسي أنت نوع عضيسي أنت أنا نوع عضين كل جين إنك سوق بقشان tomorrow بريتو أو ثلاثة أدرس كإلهام في كونغرس هوس وكخورين هاي ماشي مارتي election كل قدام ونايو إنا إماتان صعبتو سياسة دولة كسوه جيسان كرا معنا ملاهن لكن waxaa muhiim ah in taariikhdan qof kasta oo Soomaali ah anaga Soomaali ahaan ilhaan dad badan ay matashaa waa run muslim iyo gaal iyo kulli way matashaa waa run laakiin anaga hadaan nahay Soomaali ahaan aad ayay noo saameynaysaa oo waxa weeye mida u baahanahay marka qof kasta oo Soomaali ah oo awoodo inuu nagala soo qayb galo xafladaas soo dhawow haysdehin xataa aniga ma codeyn waa ka soo horjeeday iska ilow soo dhawow insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inay guusha noqoto mid umada midayso haddaad ka timid Somaliland haddaad ka timid Djibouti haddaad ka timid Kenya haddaad ka timid Kalinka Shanaad haddaad ka timid Somali Weyn Puntland Hirshabelle Jubaland intaan ka tagoya Galmudug xogaa ayaanta rajada ma fiicna laakiin hal imaado marka kulligiin inay imaataan waa insha Allah ta'ala sababtoo ah waxa waaye imagine gabadha markay tomorrow hadduu ilaahay nafta u qoro oo ilaahay u sahlo markay tagto meeshaas ayadoo xijaabkeeda wadato oo ninkii caanka ahaa ay hor fariisato oo meel kasta laga arko qofka ajnabiga ah kuma dhahayo gabadhaanaytu waxa waaye reer qabiilkaas waaye ama gobolkaas ka soo jeeda kuma dhahayo wuxuu ku leeyahay gabar Soomaali ah aqalka cad ku jirto ama ninka hor fariisatay oo muslim ah ma fahanto Soomahan taas awgeed guushan qof kasta oo Soomaaliya iskale meel kasta tagano maay iyo maxaa tiri Somali Bantu Somali Banadiri Somali Weyn war meel magac waxaas oo dhan ama calanka buluuga wado ama midka guduudka wado ama midka wax kasta ku qoran yihiin wado idaasir maarer guushan ummadda dhan iskale insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa tan inay noqoto mid ummadda dhan midayso inay noqoto mid sukaaya keento soo dhaweyso sababtoo ah layli waxa iska jiro siyaasaddan ku sii fogaanay hadaan nahay Soomaali siyaasadda laba guriyo waxa arkaysa hal guriyo waxa arkaysa wadankan ninkina uu yahay Republican xaaskina ay tahay dimuqraadi inay saasoo kale inaan gaarno waa rajeynayna insha Allah ta'ala sababtoo ah ma ahan siyaasaddan lagu kala fogaado wala kala aragti duwanaan karaa wala kala fakar duwanaan karaa marka waxaan waxba ahayn inaan maaragtay dagaal isugu qaado oo wadamo loo burburiyo ama gobollo loo burburiyo ama madaxweyne loo caayo ama mas'uuliyiin kale oo gobollada matasha loo caayo waa laga fiican yahay sababtoo ah taas anaga dhan ay saameynaysaa ilmaheena ay saameynaysaa insha Allah ta'ala marka waxaan ka codsanayaa maamulada jiro iyo maamulka weyn inaan taageerno ummadeena isku keerno aan anaga dhan hal soo wada jeesano runaantii marka campaign ku jirtid aad ogaanaysaa Soomaalimada waxa ay tahay iyo Republicaanka dadka wadanka aan joogno dhibaatooyinka inagu hayaan markaas aad dareemaysaa waxa aad tahay markaas aad dareemaysaa in Soomaalinimadu ay tahay wax weyn markaas aad dareemaysaa ninka ka yimid waqooyi iyo kan koonfur ka yimid inay isku mid yihiin ma garateen marka guushan idinka iska leh alxamdulillah u soo duceey ilhaan ducadiina loo baahan yahay codkiina loo baahan yahay dhameystirkiina loo baahan yahay noo imaada nagala qayb gala inta imaan karto waa yani aniga personally wallahi meesha dhaxday Soomaali soo buuxiso okay aan ku ahay alxamdulillah waa fahanteen Soomaha marka ila gabarka ilhaan la soo hor u sheegay qof kasta matashaa oo degan dad intaas soo boqolaal kun 700 oo kun gaaraya matashaa laakiin at the end of the day waa gabar muslimada waa gabar Soomaali ah waa gabar minority wadankan ku ah idinka idin matashaa aniga idinka idin la hadlayaa ina imaataan soo duceysaan codkiina bixisaan haddii Ilaahay yiraahdo aad ka soo qayb gashaan waa muhiim waxaan rajeynayaa markana ku soo celcelinayaa in doorashadan ama electionkan Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo mid ummadda dhan wada tuso
waa ku kala duwanaan karnaa wax kasta laakiin waxaan namidayn karo mar kasta inay tan noqoto because maanta ilhaan qof kasta uu codeeyo lama dhihi karo reer hebel ka soo jeedaa lama dhihi karo gobol hebel ka timid cid dhihi karta ma lahan magaca Soomaaliya oo dhan Soomaalida Kenya degto Soomaalida Ethiopia degto Soomaalida degto Djibouti Soomaalida degto gobolada waqooyi meel kasta waa faan Soomahan ilaa ay hoos Jubbooyinka u dhaadhac bay iyo Bokol dadahan shalay qaaday waliba arraadi ma faantay marka waxa idin rajeynayaa walaalayaal inay imaataan ka soo qayb gashaan xafladan wax yaraan oo dhiman ducada soo dira and election kan waa very important ben ma ku sheegay sharciga yaraayo ilaasinayo oo isdhahay bal meeshaan ay timaartay meelahaas ay ku duldul waa la saga daba imaaday bahalkan ay baasaboorka loo soo socdaa ma fahmino marka imaada kiid Ellison u codeeya xisbiga dimuqraadiga ah dadka idinka wataan idinka yaqaan u codeeya laakiin waxa halkan u soo galay in ay muhiim tahay in aan aragno tomorrow waqti badan soo keen dambeysay aniga Facebook soo gali jirnay ayaantan waa iska nastay alxamdulillah because of jijidki iyo wixii waa iska fahmi kartaa ya xabado badan way ku dhacayeen meeshii arag ma laga sii hadlaayo marka walaalayaal imaada nala soo qayb gala wixii kaftana waa iska kaftan and at the end of the day waa jecelnahay dad walaala aan nahay dad muslim ahaan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna believe me ban idin ma sheegay aniga indhahayga ku arkay gabdhahan caadi maaha wadankan Soomaaliya gabdhahan lagu wareejiyo 4 sano kaliya aan ku fiirino 4 years just 4 years arka wallahi bilaa jijid badan ma dhici lahayn dhibaato badan ma dhici lahayn dantooda yaqaanaan karti bay leeyihiin wax way qabsadaan horay u socdaan dhibka dhan anaga waaye subalkan maxaa waaye dhibka dhan ragga waaye ma fahmino 30 xoogaa sano waxa waa geen weynay dadka isku keeni weynay ummaddu waa isku keeni weynay marka bal 4 sano hal tijaabiyo alxamdulillah waxaan u maleynayaa inay dadka isku keeni doonaan oo maartay guulna gaarsiin doonaan marka waxa idin rajeynayaa in aan aragno habeen dambe xogaa waxaan la soo xiriirayaa insha Allah ta'ala wiil yar ano ah aan meesha imaanaya dhalinyaro ah waa faanteen Soomahan hadee wixii media waa joogan marka meeshaas in idinka arko aniga aad iyo aad igu weyn hadaa is leedahay shalay ilhaana ka soo horjeeday iska ilow waxaas waa dhamaadeen hore loo soconaaya qofta waa tagtay ma fahmino tareenka cusub soo raac waa soo raacina anaga gacmaha ay saysano hadee khayr idin rajeynayaa I love you guys all and intaan ka badan waxa waay dambiya u maleynaya hadalka badan waa laga fiican yahay guul khayr insha Allah ta'ala share ku sii qabta ma dhigi jiray hal imaada meesha dadka xamar joogo dadka boosaaso joogo dadka Ismaaciil joogo dadka joogo Cadaado dadka joogo Bokol iyo Djibouti iyo maxaa lahaay meesha aan jeclaa gobolka aan jeclaa maxay ahayd magaciisa magaaladeedii Lascaanood life soo gala daawada waxaan rajeynayaa anagoo happy ah inaan horumar gaarno gabdhaheena yar yar iyo wiilasheenaba run ahaantii waxay u tahay ilhaan Roomaro aniga Axmed ahaan wallahi been ma ku sheegay si u shaqeysaan arkay say hore ugu socotaan arkay aniga wiilkayga yarba waxay noo tahay Roomaro marka intaas kaliya awgeed imaada hadduu Ilaahay yiraahdo markay xagga tagtana haddii la sicin lahayd xataa hore oo sii wadanayna ma fahmino wadanka tagayda dawladdeena isku dhiibayna xaggan ka sii wadeena hawsha haddii Ilaahay yiraahdo dawladdeena hala taageero intaas yarta dawladnimada waa fiican tahay ayadana waxaan rajeynayaa inay ka shaqeyso dadka si soo dhaweyn lahayd oo ma aragtay ay يعني ما فينا إن سكو مارتي ما حرص قراعه. At the end of the day وحاجة domestic محل ده هاي policies and international. إنه كلا في strategy جوده إنه سكو رجي صدق دعاد وهرم جارسينا يو ماشان يتو حواي ضد وادالين بين كل شيء ياش وادالين حتى رجي أو سياسيين تكجري أجي يا بدالين والله ويدالين نفتر كود سلو عرسنا أيجان عرسنا يرمان طولن مركو حرجينا أنا أسكو أمانو oo aan hor u socono dawladana hala taageero maamul goboleedyada kuwa dhisana hala taageero kuwa wax ka dhiman yihiin hala sii dhameystiro insha Allah ta'ala ilaahay maartay dad daacada oo urkooda isku fiyo ilaahay naga dhigo oo isjecel isku jecelnahay waa ogtihiin it's no doubt about that waa isjecelnahay laakiin xogaa yar oo siyaasadda ah ayadana waxa waaye waa maturity levelka yaa wali dhiman ma gaarin you know dadka waxay ku qaadataa 200 sano inay dhisaan system jiro ما فهمنا وليبا فدراليزم أو هذا إلهي أوجي حال كيسة مركز تاسمك سيد إيران عيو وحين الله يكليه أنت يرتاح هاي سنة على سير ريحو خير أسكو أجنها بريتو إيش ضد اللايف كوجرا كسوعة والله سما دب كليه كل لايف يقولوا جرا يسوعة ما قتلفونه هيستان anyways and بريتو أسرقنا
noo imaada wasla baashaalayna haddii la yiraahdo fanaaniintii waa wacay dijiyaashii waa wacay buraanburadii diyaar waaye diraca soo xirta guntinada meeshaas aan qasna tomorrow fiican qasitaan wanaagsan laakiin ya khayr aan rajeynaya I love you guys ilaahay khayr aan siiyo noo soo duceeya siyaasadda wax sahlan ma ahan inta ku jirtana u duceeya oo muslimiinta ah oo maaragtay oo wadankan ku jirto hodan iyo maxamuud nuur iyo siyaad cali iyo abdullaahi kuuron yahay cabdi warsame iyo AK iyo u duceeya baashan wax sahlan ma ahan inta usoo socotana ina karti leedahay ogow baashan igu soo degdeg ma ahan marka insha Allah britaas arkayna haddii la yiraahdo haddaan noolahay waa intaas soo duceeya khayr ay rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما انت ولد عيسنا يا dadka markay soo galaan Facebook live marwana ugu dambeysay meesha taabanay xataa inaan taabtay ma aqaan atig inaan ku jira umaleynaya insha Allah ta'ala